dhibaatada haysta waxay tahay waxay qabanin Sacuudi oo caruur dhalay ninkaas ayaa dhibka igu haya dadku way isguursadaan haddii dhibaato dhacdana waa la dhex galaa marka ma waxa tahay qof xorriyadeeda haysata mise waxa tahay qof aan xorriyad haysan maxay tahay dhibaatada ku soo gaarto oo imika ku haysata wallahi waxaan oran karaa inaan xorriyad aanay ahayn wax aan ku noolahay dhibaatada ay haysata waa dil maaragtay jirdil ah oo aan oran karo jirdil aan la oran karin maaragtay dil caadi ah oo nin intuu naagtiisa ama dharbaaxay ama waxa way riixay oo kale aan la oran karin jirdil ah way mid aniga ay haysata Assalaamu calaykum dawada ku soo dhawaada muuqaal kale muuqaalkina waxa uu hadli doonaa hooyadan Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Aamina Salaad oo ku nool meel kamid ah xuduudda u dhaxaysa waddanka Yemen iyo Sacuudi Carabiya hooyadan oo u warantay idaacadda HBN oo agaasimaha ka yahay Mawlid Xaaji ayaa waxay ka warbixisay qaabka uu la dhaqmo ninkeeda oo ah nin ajnabi balse islaam ah oo ka soo jeedo dalka Sacuudi Carabiya hooyadan ayaa waxay ka sheekeynaysaa rafaadka iyo jirdilka uu u geysto ayada iyo carruurteeda marka qaar waxay sheegtay in carruurteeda uu u diido in ay cunto cunaan ayadoo guriga cunto taalo dhanka kale waxay shacabka Soomaaliyeed ka codsatay in codkeeda la sii faafiyo lana gaarsiiyo safaaradda dalka Soomaaliya ee ku leedahay Sacuudi si ay ugu soo gurmadaan daawada ila daawo muuqaalka oo xanuunka badan iyo wareysiga hooyadan ay siisay Mawlid Xaaji waa gartay carruur ma dhashay laba ilmood baan u dhalay imisay kala jiraan maxay yihiin ma gabdhaha mise wiilal waa wiil iyo gabar waa meeqa jir waa 8 jir gabadhu waa 8 jir wiilkuna waa 3 sano jir waa gartay Aamino kale dhibaatooyinka kale waxaa jira aan ka cabanaya waxay tahay gabadhayda inay xanuunsan tahay oo wadnaha laga hayo oo sidii gaxar dartiisa ay la xanuunsan tahay oo sida maartay ama hooyada ugu hordilay oo kale ama maxaan ku sheekaraa ama u cabsiinay oo kale in wadna xanuun intuu ku yimid ay gariirayso wadnaha oo dhacayso isu hayso dhakhtar inuu geeyo oo daawayana ayna dhicin oo maartay uusan daaweyn waxaa jirta xataa in mararka qaarkood in uu mukeedka naga damiyo oo korontada dhan guriga uu ka jaro baa dhacdo oo mukeed la'aan maalin dhan aanu joogno meesha aan ku noolahana waa meel aad u kulul waa jeesaan aad u kulusha nin walba waa yaqaana wuu daminaya hadda haddaan tusaale kaaga soo qaato subax waxaa jirta aniga gabadheeda yarinta soo baxnay annagu waxaan samaysanaynaa quraac oo kale waa kacay mukeedkii baa dul damiyay maxaa u damisay si aad u kacdeen aad gogasho uga kacdeen ood quraacda u samaysanaysaa saas ayaan maalin dhan aniga carruurtayda ku cadibnayn oon qoraxdii iyo maxay talaan kuleelkii ku jirnay waa gartay telefoonka intuu ka jabiyay sidoo kale remote intuu ka jabiyay wuxuu geeyay soodka ama codka wuxuu geeyay meesha ugu dambeysay bahalka lagu gaabin lahaana waaba jabiyada waa remote-kiya naag haddaad tahayn waxa weeye waxaad samaysaa buu yidhi baldami haddaan dabcaynaan isku damiyo oo kale laana madax baabana xanuunayba waxaan degannahayna waaba hal qorfad ama hal qol wey waa noo hanjabay wuxuu yidhi haddaad aad ka kacdid meeshaas waxa weeye wixii kugu dhacay iska ilaali waa gartay marka la yiraahdo carruurta boodaya isagoo igu xumaynaya markaas haddana aniga markaa waxay geysan caladur carruurta ku boodaya marka u horeysa marka aniga aan ku caan carruurta ama carruurtaada ka qabso aan tiraahdo ama la dagaalamay leenaag carruurteedii la dilayo daawan mayse anigu markaa igu soo jeensanaya oo adiga markaa dhibaato ku geysanaya ma anigu way dilayaa gabadheeda ilaha iska daayay ma dheer bay leedahay intuu sa ugu dhago gidaarka sa ugu sii daaya waa gartay wiilka yar intuu banaanka u soo marka waxyaalaha yani aan iloobi kar waay intuu wiilka yar banaanka u bixiyay waxaa jirta intuu wiilka yar banaanka u bixiyay banaanka albaabka hore banaankiisa uu dhigay tii yaraydna ay meel yaro zaawiyad waxaa la dhahaa meel andugu luuq yara umbay saa u fariisato saa u kada loobsato sidii qof gariiraya lugaha iyo maxaan ku sheegay gacmaha ay saa u gariiray waxa weeye isu saaratay cabsi darteed hooyadna wuu ku hordilayo labada lugood labada gacmood intuu igu xiray ayuu igu hordilay kii yaraana banaanka u saaray hadday tiri intay sidii hindadii bay labada gacmood intay saa usoo dhiibiso labada gacmood beexay odhanaysa abo hooyada ka daadilka waa gartay waa dareemi karaa waa dhibaato culus walaal Aamino waxaan rabaa marka miyaadan tegi karin marka adigu haddii aysan jirin wax ku xayiraya ma ka bixi kartid gurigaaga ilmahaaga intaa wadatid ma bixi kartid miya ilmahayga ma wadan karo dowladdii baa arkaysa waxay leedahay xaggee ilmihii geeya dowladdii waxay arkaysa anigii xataa dhalay keligii bay dirahay hadda waxaa jirta mar aan ka tegey oo 2 habeen aan ka maqnaa waxaan soo noqday wiilkayga yar
عفايدي أن كل حري لبها بين كور يدور كل حري بارطون نقد كور ما أنا هذا سفارة إنسان ليسي waxaan ku talagalay maanta inaan ku iraado wax kasta waxa dhacay ilmahaasi si doon ma noqdeen wadankayga la ii diro waxaan ku soo noqday safarda ay ugu qasabtay inaan soo noqdo markaan soo laabtay hada waa laba habeen hore u maleynay inay ahayd waxay u qasbeen aan soo laabtay waxaan ka wadaa wiilka xafayda wali ku xiran inta kala daawada oo Amina Salaad ayaa waxay sheegtay in ay nolosha u soo orday ee mar ku fikirtay in ay nafta iska qaato waxay dhanka kale ummadda Soomaaliyeed ka codsatay in muuqaalka loo sheegayo la siina gaarsiiyo safaaradda ee Soomaaliya ku leedahay dalka Sacuudiga daawada maalmihii u dambeeyay ayaa Soomaaliyeed ku soo badanayo dhulka ajnabiga ayaga oo ka fiirsan waxa u dambeyn doona mustaqbalkooda waxaan xasuusanaa bil koor gabar Soomaaliyeed oo lagu dilay dalka Turkiga ayadoo la soo sheegay in uu dilay nin u dhashay waddanka Suudaan oo xasaabo jecelka wada dhaxeeyay balse markii dambe ninkaas ka soo baxsaday oo u soo baxsaday dalkiisa hooyo mid la mid ah Turkiga ayaa laba bil koor waxay saas ugu dhacday waddanka Malaysia ayadoo gabar Soomaali oo xasaabo kala dhaxeeyay wiil ee Pakistan ay jecelaayeen markii dambe intay isfaham waayeen ayaa yarkii wuxuu dilay gabadha Soomaaliyeed oo hadda halkaas ku xiran yahay xabsi ku yaal waddanka Malaysia gabdhaha gabdhaha Soomaaliyeed waxa kula talinaya inay iska ilaaliyaan guurka ajnabiga isku guursadaan farax lagu baasto oo u dhaamo nimanka ajnabiga muuqaalkiina halkaas ku yahay oo ku maasantahay daawashada muuqaalka